halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban ku FM-yada magaalooyinka qaarkood iyo internetka ciwaankeegu yahay bbcsomali.com. arooryo suuban idilkiin baa khiyaartana dhageysatay waa 4-9 Sebtembar saacadda Afrikada Bariga haatan waxay tilmaamaysaa 7 gowa wararkan idaacaddan subaxnimo idinku haynana waxa kamid ah xisbul xaakimka Soomaaliland oo khilaaf ka dhex oogmay siyaasi wax saluugsan baa yiri xeerka xisbiga kulmiye waxa weeye gudoomiye jagad madaxweyne ku guuleystay inuu baneeyo jagada gudoomiyaha xisbiga arintaasi ma aha arin uguba curad bay ahayd Axmed Silaay markuu madaxweynaha noqday ayuu Muuse ku wareejiyay gudoomiyaha xisbiga kulmiye waxay ahayd madaxweynuhu inuu jagada baneeyo talo xisbiguna muxuu ka yiri maya meel lagu heshiiyay musharaxo markaa madaxweyne noqotay xisbiga hebel ku wareejiyay ma jirin xeerka xisbigana waa khilaafsan tahay xeerka wadankana waa khilaafsan tahay jagada banaanaata ee kamida mas'uuliyadda xisbiga waa lagu tartamaya ee aan magacaabis ku imanay taas xeerkaygu qoraya maamulka gobolka Tigray ee dalka Itoobiya oo sheegay in saaka doorasho gaara uu qabanayo Liibiya oo laga dayrinayo fayraska corona oo ku soo laba kacleeyay wararkii ciyaaraha inta dheer soo saaraha barnaamijku waa Ciise Xaaji Cabdullaahi oo Axmed Nagaashiin oo idin la socotiinaya subax wanaagsan saaxiibayaal waa tahay dhegeystayaal qodobadaas oo faahfaahsanahay noo dambeeyaan bal marka hore warkii dunida iyo Axmed Badar Axmed maasanistami dhammaan hoggaanka booliska magaalada Rochester ee magaalada New York ayaa iscasilay kadib markii nin madow ah uu ku dhex dhintay saldhigga booliska taliyaha booliska magaaladaasi Rochester Len Ron ayaa waxa iyo saraakiisha kale ayaa turxaan bixin iyo su'aalo la kulmay kadib markii toddobaadkan soo dhaafnay ay soo baxday geerida Daniel Broder taliyaha saldhiggaasi ayaa beeniyay arrintan ay isku dayeen in ay qariyaan waxa geerida ninkaasi ka dhashay dibadbaxyo ka dhacay magaalada Rochester tijaabo lagu sameeyay talaalka fayraska corona ayaa la hakiyay guud ahaan caalamka kadib markii dadka sida mutadawacnimada loogu tijaabiyay dalka UK oo jirkooda uga falceliyay si ka duwan sidii la filayay waa markii labaad oo talaalkan la hakinay jaamacadda Oxford la hakinayo tan iyo intii la bilaabay afayeen hadlaya waxa uu sheegay in dadka ka qayb galay tijaabadan in talaalka isbitaal la dhigay isla markaana baaritaan madax bannaan lagu sameyn doono in ka badan 10,000 oo ah mutadawiciin ku sugan dalalka UK, Koonfur Afrika, Brazil iyo Mareykanka ayaa ka qayb galay tijaabadani ismaamulka gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ayaa maanta qorsheynaya inay qabtaan doorashada gobolkaasi iyaga oo iska dhiga tiray baaqi dawladda dhexe ahaa in doorashadaasi aan la qaban karin xisbiga TPLF oo gacanta ku hayay siyaasadda dalka Itoobiya muddo 10 sano ayaa waxa uu ku hanjabay saraakiishooda in ay dhibaatada sii baahi doonto haddii dawladda dhexe isku daydo inay hor istaagto 5 xisbi ayaa lagu wadaa in doorashada maanta ay ka qayb galaan halka kuba kale ay qaadaceen xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu ku baaqay in la soo afjaro dhibaatooyinka ay xukuumadda Belarus kula kacayso shacabka dalkaasi Mr Pompeo ayaa waxa uu walaac ka muujiyay afduubka la sheegay in loo geystay mid ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka oo lagu magacaabo Maria Kalashnikova ugu dambeyn xaro weyn oo dad muhaajiriin ay ku jireen oo ku taala jasiiradda Lesbos ee dalka Greega ayaa dadkii ku jiray laga daadgurayay kadib markii dab uu ka kacay sawirro la soo galiyay baraha bulshada ayaa muujinaya holac ka baxaya gudaha xeradaasi waxay xeradaasi hoy u tahay ku dhawaad 13,000 oo qof warkii dunidana waa naga intaan dib idinku celiyo Axmed Nagaashe aad iyo aad buu mahadsan yahay Axmed Badar oo warkii subaxnimo inoo marinayay ayuu kaasi hayay dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale barnaamijka waa tahay dhegeystayaal aan ku bilaabay waxa la filayaa in bisha Oktoobar ee soo socota lagu qabto magaalada Hargeysa shirweynaha xisbiga kulmiye ee hay'adda talada jamhuuriyadda goonistaaggeeda ku dhawaaqday ee Soomaaliland waxa daba soo baxaya siyaasiyiin ka tirsan xisbigaas oo durba saluugay habka loo wado qabanqaabada shirkaas oo hunguri hore uga hayay inay hoggaanka xisbiga u tartamaan haatan sheegay inay ka hakadeen waxa siyaasiyiinta ka mid ah Maxamuud Xaashi Cabdi oo xilal wasiir ka soo qabtay xukuumaddii hore ee xisbigaas ee Axmed Silaay madaxweynaha ka ahaa waxaanu shir jiraayad oo Hargeysa shalay ku qabtay eedo culus ugu soo jeediyay xisbigiisa iyo gudoomiyaha xisbiga labadaba waxaanu sheegay in aanu u tartamaynin xilkii gudoomiyanimada xisbiga oo hore u sheegay inuu damac ka hayay waxa ka mid ahaa dhaliilihii uu xisbigiisa ku sheegay inuu dhabihii burburka cagta saaray xisbigu waa sida uu isagu u yidhi haddaba wariyaha BBC-da Cismaan Cabdi Xasan oo la xidhiidhay ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey Maxamuud waxa uu ku sababaynayo arrintaasi uu ku tilmaamay burburka
waxaan uga jeedaa xisbiga kulmiye wuxuu ahaa xisbi dimuqraadiya dhowr iyo 10 sanadood jiray laba gudoomiye iyo laba madaxweyne oo ka soo dhex baxeen ku soo caanamaalay loolano odayeyn isu tanaasul tawfiiq wanaagsan iyo turaale marka jidkii uu ku soo caanamaalay mid ka duwan ayaa maanta madaxweynuhu uu ku wadaa xisbigii xeerarkii xisbiga ayuu jebinayaa xaq uma laha madaxweynuhu inuu mar labaad gudoomiyaha jagada gudoomiyaha xisbiga kulmiye isu soo sharaxo xeer habdhaqanka iyo xeerka xisbiga ayaa ka reebaya wuxuu xaq u leeyahay inuu mar labaad u tartamo jagada madaxweynenimada uu hayo xaq buu leeyahay taas waan gartay maxamuud waxa tiri xeer buu jabinayaa xeerka uu madaxweynaha jabinaya muxuu yahay waxa weeye de muxuu ahaayay xisbiyadu waxay leeyihiin nidaam iyo xeerar bay leeyihiin lagu aasaaso oo dastuur ah oo nidaam ah oo ay tahay inay raacaan marka xeerka xisbiga kulmiye waxa weeye madaxweyne gudoomiye madaxweyne jagad madaxweyne ku guuleystay inuu baneeyo jagada gudoomiyaha xisbiga oo labada xil aanu isku hayn arintaasi ma arin uguba curad bay ahayd muuse laftiisa lagu wareejiyay Axmed Silaay markuu madaxweynaha noqday ayuu muuse ku wareejiyay gudoomiyaha xisbiga kulmiye shirweynaha haddana lagu doortay waxay ahayd madaxweynuhu inuu jagada baneeyo sida habdhaqanka iyo xeerka xisbiga uu jidaynayo sida ay muxuu ahaa balamihii iyo ahdiyadii siyaasiga ahaa ee madaxweynuhu haldoorka iyo waayeelkii waxgaradka xisbiga la galay arrimahaas oo dhammaantood uu laabay marka waxa weeye waxa nidaam kelitalisnimo iyo kelitoocsiya ayuu ku wadaa taladii xisbiga waan gartay shirkaadii jiraa'idan dhaliilo badan aad ku soo jeedisay haddana ereyo dhaliilaad isticmaalaysaa marka xisbigii miyaad ka mid tahay weli mise waad ka baxday maya waa ka mid ahay xisbigan tacab badan baan ku leeyahay aasaasayaashi baan ka mid ahay raggii buddhigay raggii guulaha faraha badan qaybta duulaxaad ka qaatay baan ahaa labadii doorasho madaxtooye xisbiga ku guuleystay xisbigaygii baan ka mid ahay waxaan dhaliilayaa wixii qaldan xaq baan u leeyahay muxuu ahaayay waxaan doonayaa inaan tubtii sax ahayd ku soo celiyo waan tahay dhaliil ka soo koow maadaama weli xisbiga aad ka mid tahay maxaad soo jeedinaysaa marka waxaan soo jeedinayaa in loo hoggaansamo nidaamka iyo shuruucda xisbiga in madaxweynuhu waa odaygii qaranka waa inuu ixtiraamaa muxuu ahaa nidaamka iyo xeerarka xisbiga iyo kuwa qaranka intaba muxuu ahaayay waayo sharci buu ku yahay madaxweyne sidaas oo kale ayaa shuruucda kalena waajibaad iyo xuquuq bay saarayaan waa inuu ixtiraamaa shuruucda iyo xeerarka xisbiga wax aniga aan leeyahay ii gaara ma aha waa waxaan ka hadlayaa arrin guud oo xisbiga iyaga kulmiye ah waxay tahay inuu madaxweynuhu maanta raggiisa uu u dhex noqdo ay tartamaan madal siman oo xora ay noqoto isaguna uu tartanka ka hadho maxamuud xaashi cabdi oo ah siyaasi ka tirsan xisbul xaakimka Soomaaliland kulmiye oo waramayay Cismaan Cabdi Xasan ayuu kaasi ahaa haddaba waxaan isna khadka telefoonka magaalada Hargeysa kula xiriiray gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha xisbiga kulmiye Cabdikariin Axmed Maxamed Xinif oo aan weydiiyay bal waxa uu ka leeyahay tabashada siyaasigaas iyo eedaha ah in gudoomiyaha xisbigu isagoon la tashi samaynin uu isaga iyo guddigiisaba magacaabay saaxiibkay maxamed xaashiye runtii aad iyo aad aan u ixtiraamayo ixtiraam weyn oo hayo saaxiibo gaarana anagu aanu nahay arrintan shalay uu ka hadlay ku saabsan uun shirka iyo qabanqaabada oo keliya baan anigu ka hadlayaa maadaama aan guddoomiye guddiga qabanqaabada ahay kalsooni inuu maxamed ku kalsoonaado iyo inaanu ku kalsoonaanin waa wax shaksiyan dee isaga khusaysa laakiin muhiimaddu waxa weeye wuxuu ku sababeynayay waan dhegaystay maxamed xaashiye waxaa ka mid ahaa in guddiga qabanqaabada uu madaxweynaha oo quri magacaabay oo aanu cid kala tushan ergooyinka inuu madaxweynuhu soo xulay xisbigu xeer buu leeyahay sharcina uu leeyahay sharcigaas uun haddii la khilaafo oo cidda ka baydhida ama madaxweyne ha noqoto ama cid kale ha noqotay de waa arrin karaho waa la odhan karaa sharciga looma marin masalan qodobka 16 ee xeerka xisbiga faqradiisa 3 waxay odhanaysaa shirweynaha xisbiga waxaa qabanqaabinaya guddi qabanqaabo oo uu soo magacaabo gudoomiyaha xisbiga guddida fulinta ee xisbiguna ansixiso intaana waa la maray gudoomiyaha xisbiga guddi buu soo magacaabay guddida fulinta oo dhowr iyo 40 horgeeyey way ansixisay way ogolaadeen dariiq kaloo loo mari lahaa ama ka ergooyinka qaab bay leeyihiin loo soo xulo ergooyinka waxay ka yimaadaan gobolada ilaa iminkana ergooyin annaga naga soo baxay oo aan dibadda keennay oo aan kuwaasa ergooyina oo ama laga shakeeyo ama aan laga shakeynin ma jiraan marka waxay ila muuqataa uun dowlaadkii maxamuud xaashi inay uun tahay baqdin uu baqday tartanka kusoo dhici waayey aanay wax kaloo ciladay aanay jirin
maadaama adiguna aad tahay xubin xisbiga ka mida kolleyna xogogaal u ah arrimo badan oo maxamuud ku eedaynayay xisbiga ma jira xeer qeexaya oo xisbiga u yaala oo si cad u qeexaya in guddoomiyuhu haddii uu xilka madaxweynaha ku guulaysto uu ka dego oo uu cid kale ku wareejiyo guddoomiyenimada heshiis noocaasa oo xeerarka kulmiye ku qorani ma jira xeerarka kulmiye iyo xeerarka qaranka iyo xeer hoosaad iyo is-afgarad midna meel ay ku taalo walaalkii maxamuud hadduu soo sheego oo uu caddeeyo oo ummadda farta u saaro waa laga gardaran yahay guddoomiyaha iminka jooga xaq wuxuu u leeyahay inuu laba xilli doorasho ku tartamo guddoomiyaha xisbiga wuxuu xaq u leeyahay in uu cid kale dhiso wuxuu xaq u leeyahay inuu dhaho ha lagu tartamo anigu ma tartamayo mar dambe guddoomiyaha xisbiga ma tartamayo waa qodob dastuurkuna wuxuu siiyey inuu xaq u leeyahay inuu laba xilli u tartamo madaxweynenimo marka waa kala laba shay halkaa dadka fahamkooda isku khaldan guddoomiyaha xisbiga inuu laba xilli doorasho leeyahay guddoomiyenimada xisbiga xaq u leeyahay wax ka badan si aanu u tartami karin xeerka ururada iyo axsaabtaa sheegay laba xilli doorasho inuu madaxweyne u tartami karana waxa sheegay dastuurka qaranka macnaheedu maaha lagula tartami maayo runtii maxamuud hadduu diyaar u yahay wuu tartami karayey wax kaga wadnaana ma jirin waxu diideyna ma jirin walaalkii maxamuud de ha soo dhigo oo anigu qodobadanu sheegaynay de haso ummadda ha qanciyo laakiin waxaa jira heshiisyo aan qoraal ahayn oo xisbiyada ama siyaasiyiintu markay iyagu si u wada socdaan ay hadhowna ku heshiiyaan oo la yidhaahdo gentleman's agreement afka qalaad gentleman's agreementkaasi ma jiray oo ma yahay dhaqan ka dhex jira xisbiga kulmiye sidaa uu maxamuud carabka ku dhuftay maya ma jiro mana ogi meel lagu heshiiyana ma ogi ragga xisbiga ugu waaweyna waan ku jiraa guddida fulintana waan ku jiraa guddoomiye guddida qabanqabadana waanahay shirarkaa hore laga hadlayana waa xoogaal baan u ahaa meel lagu heshiiyey hebel ha lagu wareejiye xisbiga musharaxo markaad madaxweyne noqoto xisbiga hebel ku wareejiyey ma jirin xeerka xisbigana way khilaafsan tahay xeerka wadankana way khilaafsan tahay jagada banaanaata ee ka mida mas-uuliyadda xisbiga waa lagu tartamaya ee aan magacaabis ku imanay waa lagu tartamayaa saasuu xeerkaygu qoraya cabdikariin maxamed axmed xinif oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha xisbiga kulmiye oo isaguna goordhoweed khadka teleefonka ee magaalada hargeysa igu warramayey ayuu kaasi ahaa qaar ka mid a dhegeystayaasha b b c da ayaa haddaba iyaguna aragtidooda ka dhiibanaya warkaasi ah khilaafka ka dhex oogmay xisbiga kulmiye waxaana ka mid ah dadkaasi sakariye fooxaali oo jooga magaalada burco waxaanu leeyahay khilaafka ka dhex oogmay xisbulxaakimka somalilan ee kulmiye waxa uu ahaa mid in badan soo jiray oo huursanaa balse hadda uun soo shaacbaxay hase yeeshee waxaa habboon in khilaafka hoos loo xaliyo oo aan warbaahinta eedayma laysku dhaafsan cawil shoolad oo jooga degmada xaaji saalax ayaa isaguna waxa uu leeyahay xisbulxaakimka somalilan ee kulmiye ee khilaafku ka dhex oogan yahay runtii maaha khilaaf wax weyn xisbulxaakimka ka bedelayo waayo waxaa madaxweynihii ayaa haatan xisbiga gacanta ku haya oo waxba khilaafkaasi ka bedeli maayo xisbiga ayuu yidhi waa tahay dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b c da saacadduna waxay tilmaamaysaa 7:03 bal haddii aynu eegno haatana wararkii kale dunida talaal ay dhowaanahanba gacanta ku hayeen oo ay ka shaqaynayeen jaamacadda Oxford iyo shirkad kale oo kuwa waaweyn ee dunida ee dawooyinka soo saara ahayd oo aad loogu rajo weynaa ayaa haatan waxa la sheegayaa in la hakiyey in socodsiintiisii kadib markii dadkii mutadawiciinta ahaa ee isku u soo baxay in lagu tijaabiyo falkii ka dhashay talaalkii la siiyey ee jidhkoogu uga falceliyey si aan la filan sidii hore oo dhici karta in ay dhibaato ku yeelato caafimaadka dadka ciise xaaji cabdulle oo wararka aisha ku haya ayaa haatan stuudiyaha ila fadhiya oo inoo haya ciise axmed waa markii labaad oo hakad la gelinayo talaalka ay iska kaashanayaan jaamacadda Oxford iyo shirkadda AstraZeneca afayaan u hadlay shirkadda waxa uu sheegay in dadkii ka qayb galay tijaabadan iyo talaal la dhigay isbitaal isla markaana baaritaan madax banaan haatan lagu sameynayo kadib markii jirkoodu si kale ugu falceliyay waxa uu afayeenka intaa ku daray axmedow in saynisyahanada ay ka go'an tahay in mudnaanta la siiyo badqabka dadweynaha lagu tijaabinayo daawadan ama talaalkan in ka badan 10,000 oo mutadawiciin ah oo ku sugan dalalka UK iyo dalal kale ayaa ka qayb galay tijaabadan talaalkan axmed waxaa sidoo kale talaalkan tijaabadiisa ka qayb galay muwaadiniinta dalalka koonfur afrika brazil iyo maraykanka marka waxaa guud ahaan caalamka iyo shirkadaha iyo dowladaha u kala cararayaan axmedow sida loo soo saari lahaa talaal loogu hortegayo fayraska faraha baan ku haya caalamka ee corona waxaa caalamkana axmed
guud ahaan iminka tijaabo ku jiro 30 talaalka coronavirus loogu hortagayo fayraska oo ay wadaan shirkado iyo saynis yahano kala duwan hase ahaatee waxaa loo arkay talaalkan ay soo saareen jaamacadda Oxford iyo shirkadda AstraZeneca inuu yahay midka ugu macquulsan oo haatan haddaba hakad la geliyay. aad iyo aad baad umahadsantahay ciise xaji cabdillah ayuu kaasi halkaad weli nagala socotaana waa BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waa tahay dhegeystayaal bal haatana Itoobiya. dowlad deegaanka Tigreega ee dalka Itoobiya ayaa hore u sheegtay inay maanta oo bishan September 9 tahay gobolkaasi ay ka dhici doonto doorashadii dalka intiisa kala duruufo jira awgood dib ay ugu dhigtay dowladda dhexe wadankaasi. ma ka dhabayn doonaa haddaba gobolkaasi saaka doorashada uu sheegay inuu qabanayo maxaase tallaabo ay dowladdu ka qaadi kartaa? Cabdi Daahir oo ka tirsan BBC Monitoring ayaa goor dhaweyd iga warramay. Ahmed baarlamaanka federaalka dalka ee fadhigiisu yahay Addis Ababa ayaa ka hor yimid doorashadani kuna tilmaamay inay sharci darro tahay. weli waa aroor laakiin guddiga doorashada ee ismaamulka Tigreeda ayaa shalay gelinkii dambe sheegay inay diyaar u yihiin qabashada doorashada. waxay hore u sheegeen inay diiwaan geliyeen dad gaarayo 2 milyan iyo 600 oo kun oo qof oo ka qayb qaata doorashada. waa tiro aad u badan marka waa arki doonaa maanta sida ay wax u dhacaan. maxaa laga fili karaa marka la eego xukuumadda dhexe Itoobiya sidii ay markii hore u hadlaysay tallaabo nooceeya baa la filayaa inay qaadi karto? dabcan xaaladda ayaa kacsan laakiin dowladda dhexe waxay ku adkeysan doontaa go'aankii ka soo baxay baarlamaanka federaalka. uma muuqato in dowladda dhexe ee tilaabo military qaadi doonto. waxaa laga yaabaa in xaaladda la dejiyo oo si waan ah lagu dhameeyo. marka waxaa laga yaabaa ismaamulka Tigreeda naftirkooda haddii ay ka arkaan wax dabacsanaan ah ama is-afgarad dhanka dowladda dhexe inay go'aankooda ka laabtaan. maadaama oo guddigii doorashada gobolku ay sheegtay in ay dadka tirada leeg ay diiwaan geliyeen ma la odhan karayaa marka halkaa waxa ka muuqata in ay shacabka gobolkaas iyo maamulka deegaankuba ay u diyaar yihiin oo ay ku midaysan yihiin in doorashadaas laga qabto gobolka Tigray? maya saxaafadda dalka Ethiopia ayaa sheegtay in 5 xisbi kaliya la diiwaan geliyo oo doorashada ka qayb qaata. waxaa ka hor yimid doorashadani xisbiyo badan oo ismaamulka Tigreeda ka jira oo mucaarad ah. sidoo kale gobolka waxaa ku nool qabaa'ilo kale oo ayagana ka hor yimid. marka looma dhama uma eka wax loo dhan yahay. waxaa jirtay gobollo kale oo iyaguna wax tabanayay oo ay rabshado ka socdeen. gobolka Oromiyaba aynu nidhaahnoon carabka ku dhuftee ma laga yaabaa inay ku dhiiradaan tallaabooyin noocaas oo kale ah inay iyaguna ku dhaqaaqaan? maya maamulada kale uma eka inay ku dhaqaaqi doonaan arrinkan oo kale. waxaa ka dhawaajisay maamulka Oromiyo. maamulka Oromiyo maalin dhaweyd ayaa rabshado ka dhacay oo si kale ay u careysnaayeen laakiin uma eka inay ku dhaqaaqi doonaan arrinkan oo kale. sidaan ognahay ra'iisul wasaaraha talada hayo Abiy Ahmed ayaa qudhiisa ka soo jeedo maamulkaasi Oromiyo. marka uma eka inay ku dhaqaaqi doonaan talaabadan oo kale. aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdi Daahir oo ka tirsan BBC Monitoring ayuu ahaa oo goor dhaweyd khadka telefoonka iigu warramayay. sida uu Cabdi sheegayba haddaba uu saadaaliyey in aanay xukuumadda Itoobiya wax tallaabo oo adag qaadi doonin ayaa haatan warna soo gaadhay. waxa uu sheegayaa in xalay waraysi uu siiyey ra'iisul wasaaraha Itoobiya telefishinka dowladda ee dalkaasi uu ku sheegay in aanay xukuumaddiisu haba yaraatee qaadi doonin tallaabo military oo ay kaga hortagayso go'aankaasi gobolka Tigray uu qaaday. waxaan u sheegay in ay muhiim tahay in ay dadku fahmaan in dhammaan maadaama oo doorashada dalkaasi dib loo dhigay kalsoonidii ay qabeen xisbiyada talada haya gobolada dalku oo ku jiro ka TPLF ee dalka ee gobolka taladiisa hayaana ay ahayd qorshuhu in iyagana muddo sanada loo kordhiyey xilka muddada ay haynayaan oo ay sida iyaguba kula mid yihiin dhigooda gobolada kale ee dalka. faahfaahin kale oo dheeraada oo ka soo baxday waraysiga uu bixiyey ra'iisul wasaaruhu dhegeystayaal waxaanu isagoo faahfaahsan idinku soo gudbi doonaa haddii Allah awoodda la hidmo marka isagoo dhammaystiran uu na soo gaadho idaacadaha dambe haddii Allah awoodda la hidmo. waa tahay bal weli waxaynu ku jirnaa wararka dalka Itoobiya. xafiiska maareynta masiibooyinka ee dowlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya ayaa digniin uu soo saaray ku sheegay in uu webiga Shabeelle fatihi doono sida awgeedna ay jirto cabsi ah in ay daadadku waxyeeleyn karaan deegaanada ku yaala webiga jiinkiisa oo ay lagama maarmaan tahay inay dadku kasii tabaabushaystaan masiibada la saadaaliyey ee dhici karta. Cabdilaahi Maxamuud Khaliif oo ka mid ah dadka ku nool degmada Feerfeer oo uu maro webiga Shabeelle ayaa Mucaawiye Maxamed Buraale uga warramay bal hadda cabsida ay qabaan inta ay leegtahay.
cabsi weyn baa ka jirta xagga fatahaada biyaha cabsidaas oo biyihii hadda wadanka way ku jiraan biyihii hore biyihii horaa wadanka haysto oo ku jiro oo naq fiican weliga ma noqonin haddana waxaa laga sheegayaa biyo culus inay nagu soo wajahan yihiin aad baa ilaa goday ilaa qalaafo biyahaas yaa laga sheegayaa alxamdulilah cabsi waa jirtaa cabsi weyn waa jirtaa ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa in haddii kuusii magalaaye biyahaas musiibooyinka haddii kuusii magalaaye ay wataan alla naga joojiyo digniino ayaa la soo saaray maxay tahay cabsidiina cabsidaas waxaa kamid ah biyahaas waxaa weeye goodoon baa nahay qabalaha abaale goodoon waayo waxaan ku jirnaa jasiirad ilaa 9 kilomitir bar iyo qoraxsin bay naga haysaan annaga qabalaha abaaley saas daraaddeed qabalooyin fara badanna waa ka qaxeen oo waa ka barakaceen degmada feerfeer hoos tago oo ay kamid tahay dukuusi magalaaye meesha la yidhaahdo daba dheere ilaa macnaha balan baalle hadala buurikul ayagoo saameysay aad ay u saameysay haddii kuusi magalaaye dalagii ku yaalay aad ay ugu gooyeen sidaa daraaddeed biyahaas haddana biyo hor leh inay soo socdaan haddee waad ka garanaysaa cabsida maanta taallo aad baa cabsi u jirtaa ma jiraan wax diyaargarow aad samayseen oo aad kaga hortegaysaan cabsida ama digniinaha kusoo fool leh ee deegaankaasi maya wax diyaargarow annaga aan samaynay biyahaas oon ku diyaargarownay ma jiraan biyahaas kolley waxaa weeye waa annaga goodaan baa nahay ilaa 30 casho meel ay wax nooga yimideen ma jiraan bari iyo qoraxsinta biyahaas waxay naga haystaan 9 kilomitir bay naga haystaan hay-adaha diyaaradaha dukuusi magalaaye samafalka xafiiska musiibooyinka kolley weli hadda kolley bilaantooda iyo hadalkooda inaan maqalno mooye ayaga laftooda weli lama soo gaarin waad iska garanaysaa dadka haddii kuusii magalaaye macluul baa iska jirto kiraaca iska jirto xoolaha aad meesha u godoomay aad bay macluul u yihiin oo waa ku godoosan yihiin dad badanna barakac ay sameeyeen waa barakaceen oo dhagaxyo ay tuuran yihiin ilaa 2,500 waa ka qaxeen beero miyaad ku leedihiin hareeraha webiga beerahaas waa galeen beerahaas waxaa go-ay liintii sida liinta dhanaanta oo kale sida cambaha oo kale sida bashasha oo kale beerahaas mar horaa u dambeysay biyahaas ilaa 30 casho dhulka waa haystaan haddana cabsida laga sheegay haddii kuusii magalaaye biyaha haddii bana soo gaaraanba de wixii jooga ilaahay waa nacaymin karaa laakiin dee khatar xoog ba ma lagu soo food hayso alxamdulilah intaas waaye warkeyga kolley barakacaydana waan kuu sheegay meelaha qabalaha degmada feerfeer barakacay ilaa 5 qabalo ilaa waa barakaceen 3,000 oo qoysna way sida yihiin 2,500 kolley qabalaha iyo agaarkiisa ka qaxeen banaankeena turteen dad ilaa kun ugayaas qoysna way ku goodoosan tahay haatan xaaladda deegaanka aad ku sugan tahay dhanka maciishadda meel looga yimaado wax looga yimaada ma jiraan waa go-annahay go-an baa 30 casana biyahaas waa nahaystaan waa go-annahay bari qoraxsina biyaha waa naga haystaan hataa waxaa weeye aniga hadda gurigaan kaala hadlay haddii ku siniga 1 kilomitir bay ii jiraan biyaha kiraacadana haba sheeginba kor looma bixi karo bal kiraaca ma haysano haddii kusha nololka haddii kusha nolol maalmeedka ma jiraan waad ka garanaysaa meel wax noolagu soo mariyo in macnaha diyaaradaha haddii kuusi magalaaye kacaya iyo in haddii dowlada dheereeyo in wax noolagu keeno mooyaane annaga kolley goodaan baa nahay goodaan qabalaha abaale aad bay goodaan u tahay dhibaatadiina ma u gudbiseen dowlad deegaanka kolley cabashooyinka degmada feerfeer baa wakiil laga maamulkeeda de kolley way gudbiyeen kolley feerfeer ayaga laftooda meel wax noo soo mariya hadda qabalaha abaale ma lahayn soomaa ugu dambeyn muxuu yahay xalka biya noo dhexeey anaga feerfeer hataa biya noo dhexeey 9 kilomitir feerfeer iyo anaga abaale inta udhexeyso yaa biya haystaan marka anaga feerfeer degmada feerfeer baa wax lagu dari laaba diyaaradaha haddii kuusii magalaaye madaxa xafiiska guddiga misooyinkana waxba nama soo gaarsiinin marka dowlad deegaanka waxa hadda kolley cabashadanada way haystaan oo hadda kolley degmada feerfeer inay ka warbixiyeen waan qabaa laakiin waxaan codsanaynaa haddii kuusii magalaaye dowladda federaalka iyo dowlad deegaanka madaxa jigjiga waxaan ka codsanaynaa in macnaha si degdeg qabalaha abaale u saameysay biyaha barakaceeda inay macnaha wax nala soo gaaraan aan codsanaynaa ugu dambeyn muxuu yahay xalka waxaa weeye dadkaas noloshiisa in macnaha la garab qabto oo 30 casho biyo ay hayseen dadkaas waa dareemaysaan inay jirta macluul wax hadda kuusii magalaaye bar iyo qoraxsina wax oga yimaada aysan jirin cabdilaahi maxamed khaliif oo ka mida dadka ku nool degmada feerfeer oo waramayey mucaawiye maxamed buraale ayuu kaasi ahaa waa tahay bal haatana libiya saraakiisha qaramada midoobey ee dalka ku sugan ayaa waxay ka dayrinayaan in uu 5 goor laabmay tirada cudurka dadka uu ku dhacay coronavirus ee dalka ku nool waxaana ay sheegayaan in ay arintaasi saameyn ba-an ku yeelanayso dhaqaalaha iyo adeega caafimaad ee dalkaasba Mike Thompson ayaa warbixinta nooga soo diray Samiira Cabdilaahi ayaa soo jeedinaysa
heshiis xabad joojin oo aan caga badnayn ku taagan ee bishii la soo dhaafay lagu gaaray Liibiya ayaa weli jira. isku dhacyo muddo badan socday oo u dhaxeeyay ciidamada taageersan dawladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ee fadhigeedu yahay Tripoli iyo dagaalyahanada taabacsan Khalifa Haftar ee ku sugan bariga kuwaas oo dhawaan weeraray magaalada koonfureed ee Surbur. dagaalka ayaa baabi'iyay adeegyada caafimaadka ee Liibiya iyadoo taasi ay sii dheer tahay in COVID-19 uu dalkaasi gaaray. meeshii aan ka shaqaynayay waa la xiray maxaa yeelay ma haystaan maskarada ma haystaan qalabka difaaca shakhsiga ma haystaan waxyaabaha asaasiga u ah shaqaalaha ee maalin walba la isticmaalo. Dr. Wajdan Sabri oo dhawaan ka soo bogsatay coronavirus waa khabiir xarunta xakamaynta cudurrada ee koonfurta Tripoli. shaqaalaha caafimaadka ma aha kuwo diyaarsan oo tababar ma haystaan kuwa tababarka haystana si khaldan ay wax u wadaan ma jiro qof la socdo qorshaha ka hortagga iyo xakamaynta marka waa musiibo dhab ah. Dr. Ayman Saifun Nasr waxa uu madax ka yahay guddiga caafimaadka baarlamaanka ee Tripoli waxa uu u aanaynayaa in lagu guuldareystay bixinta lacagaha dhaqaatiirta la wareegidii aaga saliidda ee bariga dalkaas ee ay ciidamada qaranka Liibiya qabsadeen waxaana uu ka cabsi qabaa in baaritaan yarida jirta ay keeni karto tiro ka badan inta ay saraakiisha soo bandhigaan. waxaan rumaysanahay in tirada aysan sax ahayn sababtoo ah tirada dadka u dhintay cudurka kama turjumaysa xaaladda dhabta ah marka waxay ila tahay in tirada intaasi ka badan karto gaar ahaan kiisaska dadka uu ku dhacay cudurka ama kuwa u dhintayba. waa in arrintu ay sidaasi ahaataa. dhaqaatiirta ku sugan halkan Liibiya waxay cabsi ka qabaan in tirada kiisaska ay maalin kasta gaari karaan 800 cases per day. dad aad u badan ayaa yimaada agagaarka xeebta intii uu socday cudurka safmarka ah ee corona taas oo sharaxaad u baahan. waxaan garanayaa qoysas idil oo uu saameeyey fayraska corona waxay aadayaan xeebta dhinaceeda waxayna kireysteen dhisme u dhow dhismaha aan deganahay. Suleymaan El Falax waxa uu ku nool yahay magaalada Benghazi oo dhacda xeebaha bari. dad aad iyo aad u yar ayaa arrintan dhab u arka oo guryahooda ku nagaada. waxaa jira dad gaaraya 500 ilaa 700 oo isugu imaanaya hal teendho oo dariskayga ah si ay ugu baroor diiqaan qof geeriyooday waxayna tacsida socotay 3 ilaa 4 maalmood. shaqaalaha ka socda guddiga caalamiga ah ee Lanqeyrta Cas waxay diyaariyeen waraaqado ku saabsan sida ugu wanaagsan ee looga hortagi karo COVID-19 sidaas ay tahayna way adag tahay in dadka laga ilaaliyo cadow aan muuqanaynin iyagoo dhibane u ah dagaalada. Patrick Yusuf waa agaasimaha Afrika ee ICRC waxaana uu soo booqday dalka. ICRC waxa ay sii waday keenista waxyaabaha asaasiga u ah caafimaadka balse wadan ay ka jiraan laba dawladood musuqmaasuq iyo ammaan daridana ay tahay waxyaabaha ugu waaweyn ayaa waxa caqabad weyn ah in caawimaad la gaarsiiyo balse Patrick Yusuf waxa uu ku adkaystay in iyadoo caalamka uu ka jiro cudurka safmarka ah ay beesha caalamka ku adag tahay in ay dhabarka aadiso Liibiya. warbixintii Mike Thompson oo Samiira Cabdilaahi jaamacayna la socodsiinaysay ayay taasi ahayd dhageystayaal. warbixintaas ayaananu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddii subaxnimo waxaynu ballanayna hawada ku kulmi doonaa haddii Allah awoodda la hidmo 2 duhurnimo markay saacadda Afrikada bari tahay inta ka horeysase waa dhammaantii oo dhammaantiin idin leh sidaas iyo nabadgelyo.